halkan ma ahan magaalada Washington, Minneapolis iyo magaalooyin kale ee dalka Mareykanka. waa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, laakiin waxa ka tagay kumanaan qoysas Soomaali ah kuwaas oo ku nool dalka Mareykanka, waxaana saameyn ay ku yeelatay go'aankii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka qaatay qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda 7 dal oo Islaam ah ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana 90 ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku jira xabsiyada dalka Mareykanka dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa telefishinka Somali Cable waxa uu la dhex qaaday mikrofoonka, waxaana ay ka hadlayaan dareykooda ku aadan in dhalinyarada Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo Soomaaliya. waxa la yiraahdaa Jibril Jaamac Soomaaliya laga soo celinaya Mareykanka ee la keenay magaalada Muqdisho oo dib loo soo celinaya waxaan u aragnaa arrin aad u khaldan maadaama arrinta ka hor imaanaya adduunka inuu isku noqdo uu siiyay mangeli siiyo inuu adduunka uu noqdo wadamo isku tiirsan dadka dhibanayaasha oo ka soo barakacay wadamadooda in la siiyo mangeli qaxootimo marka aad baa u dhaawacaysa arrinkaas Soomaalida joogtay wadanka kuwa Mareykanka jooga aad baa u dhaawacaysa arrinkaas marka waxaan ka midnahay dadka aad u saameynaysan ka midnahay marka waxaan leenahay adduunka dhinaca ugu soo istaaga arrinkaasi waliba arrinka sida gooniga ah muslimiinta loo waarsanayo leeyahay muslimiinta ma imaan karaan wadamada kale aan muslimkeena imaanayaan waxay leedahay dibkeeda leedahay Usmaan Ali Sanay waxaan ka leenahay Trump barnaamijkan oo hadda uu maaragtay Soomaalida lagu soo laabayo barnaamijkaas inuu dib ugu laabto oo xiriirka relationka ay Soomaaliya sameynayso oo dalal kale xiriirada ay sameynayso in dib loo soo laabo oo aan barnaamijkaasi uu ka laabto oo dalkaasi dadkana una aqoonsado dalka Soomaaliya ayaan ka rajaynayaa. Assalaamu alaykum waraxmatullaah. Soomaalida waa dad mashaqaystayaal ah, dhulkana barwaaqo way moos inba wax kasta ka baa iidan iyo dhagaxana la qodo hadda arada waatan aradana waxa la saaraa kontener baabuurta iyo anaska iyo bundiga la saaraa shirkadaha ku dhaxsoodaan aradana ma ujeedad aradana la qodoya arado aradoobayda oo arada hoosa la qoda dhagaga la qaadaya dhagagaas hadii xaq la geeyo oo ina dhagagaas ku shaqeynayeen Mareykan shaqo kala ma taalo wixii kala wixii oo gaalada racmoogi intii kale meeshana la shaqeynaa arada tan way marka inay imaadaan aad rabtaa inay imaadaan dhulkana barwaaqa inay dhulkan imaadaan dhulka beeraha faystaan oo wadan gaal jiin gabigiisa la iskaga dhaafo. inkastoo aragtiyadaas ay qabaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa haddana xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane ka soo shaqeynaya sharci dejinta dalka waxa uu ka hadlayaa sida uu arko go'aanka Donald Trump iyo sidoo kale go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay. taasi waxay noqonaysaa discrimination. dawladda Mareykanka ayada la diirari jirtay wax la yiraahdo midab kala sooc in bulsho dhan lagu takooro dad idinka mid ah ayaa adduunyada waxay qayb ka yihiin waxa la baxay maartay argagixisada ama ayaga ay u yaqaanaan terrorism-ka adduunka dhan aan u kala soconeen diin iyo dadnimo iyo dawladnimo awoodo iyaga intaasi ka baxsan iyo tu Mareykanka laftirkiisa dalkiisa gudihiisa ka dhacday Soomaaliya in maanta ayada ee la yiraahdo waxay ka mid tahay qayb ayadoo teedii waxaan la magaratay oo wadamo kale ka sii baxsan xuduudaheeda in Soomaaliya eedaas ay wax ku yeelato waa arrin aan u aragno takoorid lagu takoorayo jinsiyadda Soomaaliya mana aha yaani mid ku haboon dawlad Mareykan oo kale u dhalatay iyo madaxweyne ku abtirsada dal adduunyada ay ka sugayso inuu asaga u horseedo nabad ama inuu bulshadeeda kor u qaado ama inuu soo maartay dhiso mujtamacaadka burburay dawladahooda oo ay Soomaaliya ugu horeyso. 7 dal ayuu Donald Trump ka mamnuucay in dalka Mareykanka ay tagaan, waxaana koow ka ahaa dalka Soomaaliya oo uu ku sheegay in dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay u horseedeen dalka Mareykanka, waxaana caqabad badan ay ku noqon doontaa qoysas badan oo Soomaaliyeed oo dadkooda ay ka soo bilaan dalka Mareykanka. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.